عقال يقصك الله ونحريسته مدحويني هوري سوماليلان عبدالرحمن أحمد علي عبدالرحمن تور وورباهنتا كلها hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin wararka sheegaya in xisbiyada mucaaradka Somaliland ay ku lug lahaayeen dhacdadii ka dhacday munaasabad habeennimadii xalay tolo lagu soo bandhigay buug laga qoray taariikhda Allah ونحريسته madaxweyne hore Somaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali sidoo kale xubnahani waxay sheegeen inaanay metelin odayaal iyo cuqaal maanta magaalada Hargeysa kula hadlay warbaahinta kuwaas oo arintaasi ku eedeeyay xisbiyada mucaaradka cuqaasha iyo qoyska madaxweyne hore Somaliland ayaana si weyn u bogaadiyay qoraaga buugga qoray taariikhda Allah ونحريسته madaxweyne Cabdiraxmaan Tuur iyo dhamaanba cid kasta oo ka qayb qaadatay bandhigga buuggaasi وآذن أحمد علي والله ولا عبد الرحمن أحمد علي iyo محمود أحمد علي labadaba iyo qaar kale oo badan waxaan halkan ka salaamayaa wixii codkayga maqlaya iyo wixii codkayga maqlaya oo dhan halkan ka salaamaya waxaan yaroo jawaab u sheegaya oo ka oranaya cod ka baxay TV-ga oo aanu la yaabnay ama aan la yaabay oo aan metelin oo aan shaqo nagu lahayn oo wax allaale wuxuu nagu metelaa aanay jirin oo codkan ka baxdo codka iyaga ku hadlayay xafladii xalay ee lagu maamuusay Allah ya raxme Cabdiraxmaan Axmed Cali waanu joognay goobjoog baanu ahay aniga iyo rag badan oo reer Axmed Cali ba wax dhibaato ah iyo wax diida ah iyo waxaanu qoonsano midna kuma aniga raalli baanu kana hadday xusbiyada mucaaradka tahay iyo hadday dawladda tahay midnaba wax xumaanaya wax ciidan ka sheegina ma jirto intaba raalli baanu kana caruur yar yar baa foorfooriday caruurtuna wax qiimo loo yeelo ma ahayn marka waxaanu cambaaraynaynaa oo ka xunahay rag aan metelin oo aan cuqaashayada ahayn oo aan dadka iska xigin waxay codka iyaga ugu hadlaan ama arrinka iyaga u soo qaataan waanu cambaaraynaynaa waan kan inta uu uga sheegay ayuu hadalku ku dhan yahay xalayto xaflad baa dhacday xafladaas oo ahayd buuggii loo bandhigayay Cabdiraxmaan Axmed Cali ee loo bandhigayay buuggaas si wanaagsan bay arrimihiisa u socdeen oo si wanaagsan bay arrimihiisa u dhaceen marka waxa weeye xisbiga wadani Cabdiraxmaan doctorka Cabdiraxmaan Cirro musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo ninkaas waxa weeye gacan weyn buu ka geystay arrinka buugga rag badan baa ka xanaaqay markay magaciisa meesha ka maqleen ee anigu aan ka jeediyay mahadnaqa aan doctorka magaciisa meesha ka sheegay ayaa rag badan aad iyo aad uga fasayn baan siiri dabadeen rag baa la soo kiciyo la yiri arrinkaas ha laga dabato anagu xisbiga wadani iyo musharax madaxweynaha doctor Cabdiraxmaan Cirro waxaan u haynaa mahad weyn haddaanu nahay reer Axmed Cali wax weyn buu taray oo abaal aan ugu hayno waliba laakiin ragga meesha ka hadlay ee yiri waxaan ku hadlaynaa afkii reerka odaygii ugu weynaa reer Axmed Cali waa ka fadhiya ee imika iga horeeyay aniguna waxaan ahay Cabdicasiis Ibraahim Maxamuud Axmed Cali ayaan ahay aniguna family-ga ayaanu nahay intay meesha fadhida Mubaarak Cabdilaahi Yuusuf Axmed Cali halka buu fadhiya reer Axmed Cali waanu ku dhannahay odayaashoodii halka baanu ku fadhinaa nimankaas waxay sheegeen iyo xisbigana eed saareen wax ka jira ma jiro anagu xisbina eed saareen meeno oo xisbiga wadani wanaag iyo qurux mooyaane wax eedan u hayna midna ma jiro way kii wax ku darsay wax bixiyay isagu kii buuga daabacay haddana maanta naahdo isaga waxaan ka dambeeyay mudaharaad meesha ka dhex sameeyay waxa weeye taas waa xumaan la isku dareeyo dadka oo la doonayo wadani in reerka aanu nahay laga saaro kana bixmeeyna reerka aanu nahay waa wadani reerka aanu nahay waa wadani weey waan salaamaya waxa kale idin sheegay halkan ka cadeynaya cuqaashiyadii haddana aan ku reexam calinahay lama tala anaga cid walba noo matasho cuqaal baanu haddana reexam calinahay cuqaashiyadu waa kuwa halka fadhiya mikrofoonka iyaga ku wareejinaya wixii jira iyaga halka ka sheegi doona sida labada odayga hore sheegeen aadan Axmed Cali iyo Cabdicasiis Ibraahim Maxamuud Axmed Cali shirkeenan jarayd wuxuu daaran yahay
war ka baxay maanta TV-ga ama social media ka soo baxay niman cuqaala oo odayaala oo jifadeena sheeganaya oo yiri buuqii iyo sawaxankii ka dhacay xuskii shalay loo xusay buuqii Cabdiraxmaan Axmed Cali xisbiyada mucaaradka ka mas'uula runtii arintaa gudaheeda dibad baa laga yaabay fajac baan ugu noqotay arin yaab iyo kamakaaga nugu keentaa noqotay waayo marka hore de nimankan saddexdan caaqile meesha ka hadlay waa cuqaal weeye waa jiraan laakiin saddex caaqil oo de ardaagan khuseeya ama jifadan Cabdiraxmaan Axmed Cali ka soo jeedo khuseeya horta maaha horta waxaan ugu noqotay arin la yaab ah taas waa kow laba arinka jeediyeen ee eedeynta culus ku jeediyeen labada xisbiye mucaarad ee mid anugu aan hayno maaha taasna waa labada xisbi mucaarad ucud iyo wadani iyo labadooda hogaamiye ee kala Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo Faysal Cali Waraabe waa niman sharaf aan u hayno iyo wanaag aan u hayno aan xumaanana dhex oolin dawladuna waa sidoo kale waa dawladeeni waa xukuumadeeni sharaf iyo wanaag baa u hayna ilaa laga soo bilaabo madaxweynaha xuskeena anagu xisbina umaana walaleeynin taariikhna been ka sheegi mayno anagu waxa xusinu madaxweynaha Cabdiraxmaan Axmed Cali waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinaya qoraaga buuga Cabdulqani Cabdullaahi Aadan ana kaas yar ee dadaalka farabadan sameeyay juhdiga farabadanna sameeyay sagana maanta hadduu gaf iyo khalad ka dhacay golaha sagana la gelin bixi wax qoysaan anaga noo yaala maana jeclayna ka hadalno waxaan soo galay maanta meesha anoo waliba khaasatan caaqilkii hoose ee jifada Cabdiraxmaan Axmed Cali waxaan soo kiciyo waxa weeye chief caaqilkii guudna waxaan soo kiciyay oo soo galay arintan warka meesha ka baxay saddexdan ina caaqil saaxiibada waa degdegeen waan wada soconay burca ka wada imanay buugaana la xuseeyeen Cabdiraxmaan Axmed Cali de waxa haye martida la mid haye goobta joogta de waa sharaf baan u haynay laakiin de warkan jeediyeen iyo eedeynta jeediyeen waa midiga ku kooban yagana laga doonaya cadeynteeda iyo hadalkeeda iyo waraahdeeda laga rabaa anagu labada xisbi iyo xukuumadeena sharaf u hayna meesha sawaxan uu ka dhacay waarun buuqu ka dhacay waarun waa la furfoorayay waxba ka soo socday dad baa tagtaagnaa laakiin waxaan anagu aan u nisbeynino de dawladu nisbeynino ama u nisbeynino xisbiya mucaarada maaha waa caruur yar meesha ka hadlis maamulka meesha baa u taariina ka hadasho laakiin waxaan anagu aan cidna u nisbeynino oo oranay qofkaas waa wadi ma jirto haga wax mar labaad ku celinaya oo saddexaad ku celinaya rageen halkan fadhi xisbina manihiin cuqaash reerkaanu nahay iyo odayaasha reer Axmed Cali waxa uu arintaas cidii alla cidibsata khaasatan xisbiyada mucaaradka ee warka laga soo saaray in xaal iyo abalajo iska bixino celin aan uga jeedinayaa dhammaan dadkii sida weyn ee milgaha leh ee maamuuska leh ee sharafta leh u soo maamuusay madaxweynahoodii hore Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Axmed Cali ee maxay haytay taariikhdiisii iyo habdhaqankiisii iyo soo jireenkiisii inta badan maxay haytay Soomaaliland la oran jiray maxaa Cabdiraxmaan loo xusi waayay xalayta maxay haytay ayaa si weyn oo sharaf leh casuumadda maxay haytay ay looga sheekeeyay waan bogaadinayaa oo qoys ahaan iyo qabiil ahaanba waa u mahad celinaynaa intii maxay haytay madaxweynaheedii weynaa ee u horeeyay ee Soomaaliland aasaasay iyo chairmankii u dambeeyay ururka SNM waa hambalyeynaa si muglaban maxay haytay caaqil ahaan iyo qabiil ahaanba aan maxay haytay uga mahad celinaynaa una hambalyeynaa waxa raaca odayaashii ugu horeeyay baa hadlay cuqaashii reerka hadashay reer Axmed Cali baa fadhiya reer Maxamuud Axmed Cali baa fadhiya reer Axmed Cali baa fadhiyo oo guud ahaanba yar iyo weynba waynu ku fadhinaa cuqaashii Muuse Carraan ku fadhinaa xildhibaankii reerka ay barbar fadhiyo caaqilna ah dhamaantay caawa waxaanu halkan ka cadeynaynaa inaanu aad uga xunnahay maxay haytay wixii maanta TV-yada ka soo baxay ee lagu eedeynayay waxaan waxba ahayn oo misqaala daratiyo ka dhacay xalayta maxay haytay xafladii lagu eedeynayay asxaabta maxay haytay qaranka ee mucaaradka ucudiyo maxay haytay wadani ayaan horta aad iyo aad uga xunnahay waa ka raali gelinaynaa Faysal iyo Cabdiraxmaan ba naguma matalaan eedaan naguma matalaan shakhsiyadooday ku hadleen anagu afka qabiilka iyo afka reerkaba ku hadlayna iyo afka reer Maxamuud Axmed Cali ba ku hadlayna waxaan aad uga xunnahay cambaareynta iyo foolxumada iyo eedda dusha laga saaray asxaabta mucaaradka ma geydo Cabdiraxmaan abaal baan ugu haynaa xusbiga wadani abaal baan ugu haynaa wuxuu ka qaatay qayb libaax wuxuu ka qaatay
midaan musacri ilaawi doonin buu ka qaatay midaan reer axmed cali ilaawi doonin cuqaal ahaan iyo reer ahaanba xisbiga wadani taageeradii cabdiraxmaan taageeray ma ilaawi doono bolochesna waanu ka siinay wax allaale wixii maanta maxay haytay sharaftoodii iyo maamuuskoodii iyo milgaha xisbinimo la gaarsiiyey waxaanu shacabka reer Soomaaliland u sheegaynaa inaanay tuhun ku lahayn inaanay maxay haytay geyin inaanay maxay haytay milgahooda ahayn baanu shacabka reer Soomaaliland u cadeynaa haddaanu nahay qoyska mar labaad waxaan ku celinayaa annagu barwaaqana ma nihin nafaqana ma nihin annagu wadani baanu nahay wadani baanu madaxweynaha iyagu waa cabdiraxmaan cidna uga gaban mayno cidna qarin mayno waxa weeye eedaha laga daayo foolxumadaha laga daayo xagga laga daayo waa madaxweynihii mustaqbalka waxaan kale oo aan halka kan maxay haytay aan mar labaad ku celinayaa oo aan uga mahad celinayaa dadkii sida sharafta lahaa xalayto uga hadlay maxay haytay taariikhdii cabdiraxmaan axmed cali sida milgaha ee qiirada leh ee argagaxa leh nimankii uga hadlay ayaanaan marnaba ilaaweynin oo ugu horeeyo mulkiilaha maxay haytay cali cumar ugu horeeyo dhammaan intii ka hadasho dhan cali guray baanu ku ammaanaynaa shirkayga jaraa'id dadkii taariikhda sida wacde maxay tahay runtaa uga sheekeeyey ayaanu ku ammaanaynaa mar labaad waxaanu leenahay cabdiraxmaan madaxweyne iyo faysalba ma gaydaan wixii maanta laydinku sheegay habaryoonisna waa garxajisna waa wadani iyo ucid qarsan mayno hal galgalatay labaceeda ma qarsan intaasaanu bayaaminaynaa wasalaamu calaykum salaan weyn iyo bogaadin uga dirayaa qoraagii buugga cabdiqani aadan sharaf buu naga mudan yahay sharaf weyn buu naga mudan yahay magacayagu kor u qaaday magacii qabiilkoo dhan buu kor u qaaday waxay qaban kari waayeen buu qabtay weliba aniga khaasanta seedigay baal dahab iga qoray aad iyo aad baan u salaamayaa si wanaagsan oo gobonnimo leh buu yaalay intaa waxaa ii dheer xisbiga mucaarid labada xisbiga mucaarid sharaf weyn bay ku lahaayeen goobtii si fiican bay uga soo qayb qaateen buugga iyo hawshiisii waanu karaamaynaynaa waa ixtiraamaynaa waxaanu leenahay jazaakallahuma khayr aad iyo aad baanu idinka mahad celinaa juhdigii iyo wanaaggaa geliseen ceebna nagama geydaan xaashaa lilah si gaara waxaan uga mahad celinayaa faysal cali waraabe guddoomiyaha ucid hadalkii caddaa ee uu caddeeyey ee raggii ka tegay hadalladii guushiisii wada sheegi waayey uu ku qiray ee uu nin walba saxay wixii ka khaldamayna faysalo waa kuu haynaa si wanaagsan baad u caddaysay waana idinku mahad celinaynaa dhammaan dadkay dhegaysanayo dhan waxaan kan uga caddaynayaa in aanu raalli ku ahayn xafladda iyo sidii ay u dhacday 100% xaflad bay ahayd maxaan ku rahay qarankan qiimo weyn ugu fadhida in la siyaasadeeyna maaha in si qaldan loo fikrana maaha waxaanu leenahay cid kastoo arrintaa dhibsatay ay cuqaashu ka hadashay raaligelin baanu ka bixinaynaa sidaa la sheegay raggii hore sheegeen waa cuqaal reerka laakiin maaha cuqaashii jifadan afka reer axmed calina kuma hadli karaan cuqaasha kale ee halkan fadhidaana waxa weeyaan jiif caaqilkii guud baa fadhiya oo maxaan ku rahay jifadii maxaan ku rahay caaqilkii cabdiraxmaan tuurna waxaan leeyahay markaa dadka sidaa u hadlay si qaldan bay u fakreen raaligelinna waanu ka bixinaynaa ismaaciil cabdi xasan saab TV hargeysa